ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت عارف أنا كذا إن لو ذاقوا وحكلنا معهن وحير أو وحارة إنه أسحسوس إنه كذا صان أطالع الحمد لله رتش كوينا حافظنا دقنا هاي طالعنا هاي كذا هذا وجه ده هل كان حقيقة لك قذا دي بقى طالع تيفينا ويا العيالك هل كانوا حقيقة له فدي بقى له هذا أركتان fadhigan jikadu yaala halkaana meel oo buuga ciyaalku akhristaan waayaan buugooda dhigtaan meeshaana ayaga fariistaan anaga xataa ma fariisanaa laakiin sideeda ahaan guriga waxay ilmuhu u baahan yihiin meel ay fariistaan oo buugooda iyo meel ay wax ku akhristaan in guriga looga sameeyo si ilmuhu og yihiin meel ay buugooda dhigtaan waxna ku akhristaan marka waa muhiim in ilmuhu ay og yihiin meel ay buugooda dhigtaan meel ay fariisan karaan wax ku akhrisan karaan taasi waa muhiim horta kalarkan baajkeeda hadda igu yaala guriga hadda alaabtana laga yareeyo kala yar oo macaan oo isku soo dhow hadda kalarkan turkoos al dhaha wadankeena laakiin Soomaali blue oo biyo waan dhigi karnaa marka kalarkan aad baan u jeclahay marka kalar simbal oo wax yar isku soo dhow gurigaaga hadda isku soo dhawaysid oo sharaxaadii wax yar isku soo dhawaysan isku maajisay marka guriga quruxda ku noqonaya alaab badan guriga laga yareeyo alaabta tirada badan dhibaato inoo leedahay bus iyo wasaq bay noogu badanaya gurigana qurux kuma noqonayo laakiin gurigaaga hadduu wax yar simple iska yahay alaab badan hadda gurigayga mataal jikada wax alaab badan ma ii taalo saaragtaanba marka khaanadaha iyo alaabta inta kale insha Allah marka la soo gelina waxay ku xiran tahay idinka dhiirigelintiina iyo wax jacaylkiina ma ogta qof waqtigiisa ma isku soo gelinaya markuu wax inii soo duubayo waa inaa wax laga faa'iideeyo sida aniga gabdho badan oo YouTube-ka maanta aan wax badan uga faa'iido ma sha Allah marka ra'yigu hadii la isku darsado wuxuu keenaa marka ma sha Allah qof baa wax laga yaabaa inuu maanta wax yar ka faa'iido adna ina qof ka faa'iidid marka hadii la isku faa'iideeyo hore u soconahay Soomaaliyeed marka aan isku faa'iideyna gabdho gurigeena ogaano alaabta iska yareyno waxaaga dhahday ku organiseeraysan yihiin oo waxaaga aad ogtahay meeshay ku yaalaan laakiin hadaa koobka iyo kabti iyo buugi iyo warqadii iyo wixii dhan isku meel aasaadid adna waad ku wareeraysaa gurigaagana jaaha weliga ka dhumaanaya adigana hawsha ma ka yaraanayso guriga hawsha baa kugu banaanaysa weliga hawsha si kasta u qabo hawshii sideed ahaanaysa ilaa alaabta dhan baa iska ka dhaxdaadsana laakiin gurigaaga jadwal u samee wax walba meesha dhiganaysid ogow waxyaalo badan baa markaas ku fududaanaya waqti badanna waa ku maxaa lahaa waa helaysaa marka laakiin hadda aad waqtigaaga aad maanta dhan gurigii hawshii kabtii alaabtii guriga ka badan tahay wax walba oo maxaa lahaa isku ka dhexyaalaan hawsha ma dhamaanayso laakiin hawshu way ku dhib yaraanaysaa hadda ogtahay alaabtana guriga laga yareeyo gabdho waa taladayda meeshaan u jeedaan darbigan alwaax markii soo ahaa marka ana meeshaan ku dhajiyay geedan ana marka insha Allah waxyaalo badan aan rabaa inay soo wadaa gabdho idinkii dhiirigelintiina ku xiran tahay marka waxyaalo badan inay soo wadaa gabdho kan ana darbiga ku dhigsaday marka alwaaxasan diiday alwaaxooga wuxuu marka ana ku yidana ku dhigsadayba marka insha Allah waxyaalo badan ba isla wadaagi doona hadii Ilaahay ka raali noqdo marka insha Allah jikadayda maanta saas baan inigu soo geliyo ma inaynan gabar Soomaali dhexda u xiran meel walba ay joogto dibad iyo daakhilba marka waxa waayaan aad bay maxaa lahaa gabdhaheenu gabdha kartile u yihiin maaha inay gurigeeda sharaxin karin maaha inay wax qabsan karin gabar kastoo Soomaali waxa ogahay inay gabar raga tahay oo maxaa la dhexda u wada xiran tahay hooyo kasta waxay jeceshahay gurigeeda quruxdeeda ilmaheeda quruxdeeda meel walba bilicdeeda marka
gabdho waxaan leeyahay ma aynaga wado inayna wax gabdhaheenu wax ayna garanayn oo sharxaad aqoonin ama se wax ay gurigooda ka sameyn may waa dhiirigelin marka qalad ii fahminina gabdho guri kasta Soomaali waxaan jecel inuu bilicdiisa kor u taalo oo la dhaho ma sha Allah reerkaasi laakiin gabar Soomaali markii gadaal laga xanto cadaan ama wuxuu rabaa ahaato ama dhexdooda aniga aadan wax maadnaya marka laakiin gabar kasta markii la dhaho hebla dhexda u xiran ma sha Allah waa ina ugu daro anagana ma sha Allah dana isku badino marka gabdhaheena dhexda haynay wada xirnaato meel aad joogtaanba idinka iyo dhiirigelintiina baan sugayaa kana markaan aad daawataan jawaabtiina sugaa wax badan ay soo gelinaa idinka haddii aad ma taqaanaa dhiirigelin badan iga helo marka ana wax badan baa soo gelinaa marka gabdho is dhiirigelino